kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah kooxda Al-Shabaab oo maanta dagaal kula wareegay saldhig ciidanka dawladda ay ku lahaayeen deegaanka Daynuunay ee ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo dagaal culus oo halkaasi ku dhaxmaray ciidanka xoogga dalka iyo dagaalyahanada Al-Shabaab khasaare ka dhashay dagaal maanta dhaxmaray ciidanka Somaliland iyo kuwa Puntland iyadoo dagaalkaasi uu ka dhacay gobolka Cayn wararkii ugu dambeeyay xiisad dagaal oo ka taagan gobolka Cayn ayaan idin soo gudbin doonaa dawladda cusub ee dalka Kenya oo ku dhawaaqday in ciidamada Kenya ee nabad ilaalinta ay sii joogi doonaan gudaha Soomaaliya iyo wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Kenya oo ku dhawaaqay xilliga ciidanka ay ka bixi doonaan Soomaaliya sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa kooxda TPLF oo shuruud cusub ku xirtay in ay hubka dhigto kadib heshiiskii ay la gashay dawladda Itoobiya iyo heshiiskaasi oo iminka qarka u saaran in uu burburo qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownaa daawadayaal dagaal u dhaxeeyay ciidan ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 6aad iyo waliba kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo isku dhinac ah ayaa maanta dagaal culus la galay kooxda Al-Shabaab kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab deegaankaasi Daynuunay oo 25 kiiloomitir dhanka bari kaga aadan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ay soo weerareen dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii xubnaha ka tirsan Al-Shabaab weerar ay ku soo qaadeen saldhigga ciidanka dawladda ee deegaanka Daynuunay iyadoo halkaasi uu ka dhacay dagaal saacado badan qaatay kaasi oo geystay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaana sheegay inay fashiliyeen weerarka kaga yimid dhinaca Al-Shabaab isla markaasina khasaaro ay ku gaarsiiyeen dagaalka ay la galeen hayeeshee kooxda Al-Shabaab ayaa dhankooda sheegtay inay la wareegeen deegaanka Daynuunay ee gobolka Bay ciidamadana ay ka dileen saraakiil ka tirsan goobjoogayaal ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in rasaas goosgoos ah saacadihii ugu dambeeyay laga maqlayay deegaanka Daynuunay iyadoo halkaasi ay gaareen ciidamo gurmad ah oo ka baxay dhinaca magaalada Baydhabo si Al-Shabaab ay uga difaacaan deegaankaasi dhowr jeer ayaa Al-Shabaab ay weerareen lana wareegeen deegaanka Daynuunay oo ka mid ah deegaanada laga ilaaliyo magaalada Baydhabo oo uu ka shaqeeyo maamulka Koonfur Galbeed iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin ciidamo fara badan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed wararkii ugu dambeeyay ayaa tilmaamaya in ciidamada militariga Soomaaliya qaybta 6aad ay dib uga saareen kooxda Al-Shabaab saldhigga Daynuunay iyadoo halkaasi iminka si buuxda ay gacanta ugu hayaan ciidanka dawladda wali qaybihii dhexe ee warkeena ayaa daawanaysaan daawadayaal iminkana dawladda Kenya ayaa ku dhawaaqday xilliga ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee qaybta ka ah ATMIS laga saari doono Soomaaliya ciidamada Kenya ee ku hoos shaqeeya howlgalka kumeelgaarka ee Midowga Afrika ee ATMIS ayaa sii joogi doonaan Soomaaliya sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Kenya wasiirka gaashaandhigga Kenya mudane Aadan Barre Ducaale oo waraysi siiyay wargeyska Nation Africa ee ka soo baxo dalka Kenya ayaa sheegay in joogitaanka ciidamada Kenya gacan ay ka geysanayaan sidii loo tayeyn lahaa ciidamada Soomaaliya Aadan Barre ayaa ballan qaaday in dawladdiisa ay garab istaagi doonto madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo shacabka Soomaaliyeed sidii dalkooda nabad lagu soo dabaali lahaa in ka badan 4,000 oo askari oo Kenyaan ah ayaa jooga Soomaaliya kuwaasi oo ku sugan deegaanada Jubbaland waxaana ay ku howlgalaan magaca Midowga Afrika ee ATMIS madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta ayaa hore u sheegay in tirada ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya la dhimayo si ay qayb uga noqdaan qorshaha kala guurka howlgalka ATMIS balse wali qorshahaasi ma uusan fulinin iyadoo ciidamada Kenya ay wadaan howlgallada nabad ilaalinta ee ka soconayo Soomaaliya dhinaca kale wararka naga soo gaarayo dhanka Jubbaland ayaa sheegaya in nin hubaysan
uu gudaha u galay saldhig militari oo ciidamada Kenya ay ku leeyihiin gobolka Jubbada Hoose, waxaana uu dilay ugu yaraan 3 askari sida ay xaqiijiyeen militariga Kenya. ninkan hubaysan ayaa rasaas ooda kaga qaaday, wuxuuna sidoo kale dhaawacay 5 askari oo kale ka hor intaan isaga la dilin, sida uu sarkaal militari oo codsaday inaan magaciisa la shaacinin wakaaladda wararka ee AP u sheegay. weerarkan ayaa ka dhacay saldhig ciidamada ay ku leeyihiin Jubbada Hoose, gaar ahaan meel ku dhow xuduudda Kenya. kooxda Al-Shabaab ayaa warbaahinteeda ku sheegtay inay fulisay weerarkan, balse ma aysan shaacinin khasaaraha. waxaan aaminsanahay in ninka hubaysan uu muddo tijaabinayay weerar noocani oo kale ah, waana inaan taxadar badan muujinaa oo aan feejignaanaa, ayuu yidhi sarkaalka ka tirsan ciidamada Kenya. innaga oo ku dhowaanayno dabaaldegyada dhammaadka sanadka, waxaan u baahannahay inaan aad uga feejignaano argagixisada. khatarta argagixisanimo waa mid u baahan in laga hortago, waana in la qaadaa tallaabo kasta oo lagu xakamaynayo qorshahooda, ayuu yidhi sarkaalka. ilaa iyo hadda ma caddo siday ugu suurto gashay ninkaasi hubaysan inuu gudaha u galo saldhigga ciidamadaasi ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta ee ATMIS. wararka naga soo gaarayo gobolka Cayn ayaa sheegaya in ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland ay ku dagaalameen gobolkaasi, iyadoo dagaalkaasi uu sababay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac. dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Qaraaro oo gacan ku hayntiisa ay isku haystaan maamulada deriska ee Somaliland iyo Puntland. ila deegaanka ayaa sheegeen dagaalkaasi uu ahaa mid culus, isla markaasina la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, kaasi oo weli xiisadiisu ay taagan tahay. inta la xaqiijiyay waxaa isku horimaadkaasi dhexmaray Somaliland iyo Puntland ku dhintay ugu yaraan 2 askari, halka ay ku dhaawacmeen 5 kale oo labada dhinac ah. taliyaha guutada 135aad ee ciidamada Somaliland ee aaga Buuhoodle, Cabdullaahi Dhagaweyne, oo waraysi bixiyay ayaa waxa uu sheegay in ciidanka Puntland ay soo weerartay ciidamada Somaliland oo nabadgelyada sugayay. ciidanka Puntland ayaa soo qaaday buu yiri weerarka oo 2 garab ah, garab qaybta booliiska oo ah taliyaha qaybta uu watay, qaybna waxay ahayd ayuu yiri qaybta daraawiishta. dagaal ayaana halkaasi ka dhacay, ciidanka nabadgelyada sugayay iyo nimankaasi ayaana dagaalamay, ayuu yiri gaashaanle Dhagaweyne. gaashaanle sare Dhagaweyne ayaa sheegay in dagaalka uu ka dhashay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac, isla markaasina ciidanka Somaliland dagaalkaasi ay ku qabsadeen baabuur dagaal. dagaalkaasi khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay dhankooda. inta aynu ka warhayno 3 dhimasho ah iyo 7 dhaawac ah ayaa la sheegay. Somalilandna nin askari ah ayaa ka dhaawacmay, 3 gaari oo 2 tiknika ah ay tahayna waa laga qabtay, ayuu yiri Puntland, sida uu sheegay gaashaanle Dhagaweyne. waxa uu tilmaamay in markii dagaalka uu dhacayay ciidamada Somaliland ay ka shaqaynayeen sugidda amniga nabadgelyada Buuhoodle oo shaqaaqa beeleed ay ka dhacday, isla markaasina ciidanka Puntland uu dhinaca kale ka joogay magaalada. kadibna ciidamada Puntland ay soo weerareen ciidanka Somaliland xilli ay sugayeen ammaanka odayaal dhaqameed deegaankaasi soo gaaray. xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan, waxaana socdaa dhaqdhaqaaqyo iska soo horjoodo, iyadoo dadka deegaanka cabsi ay ka muujinayaan in mar kale dushooda lagu dagaalamo. Somaliland iyo Puntland oo isku hayo deegaano badan ayaa hore ugu dagaalamay gobolada Sool iyo Sanaag oo weli isku hor fadhiyaan ciidamada labada dhinac. si kastaba labada maamul ayaa maalmihii ugu dambeeyay sameynayay dhaqdhaqaaqyo xoogan, waxaana taasi ay keentay in Somaliland ay la wareegto degmada Boocame ee gobolka Sool, taasi oo ka mid ahayd meelaha Puntland ay u qorsheynaysay doorashadeeda. ugu dambayntiina daawadayaal hogaamiyaasha Tigreega ayaa sheegay in ciidamadooda aysan hubka dhigi doonin ilaa iyo inta laga damaanad qaadayo amniga dadka degan gobolka waqooyi ee Itoobiya. hubka dhigista ciidamada iyo kooxaha maleeshiyaadka waxay qayb muhiima ka ahayd heshiiskii nabadeed ee dawladda iyo kooxda TPLF ay kala saxiixdeen 2 bisha November. labada hogaamiye ee ugu sareeyo xisbiga Tigreega ee TPLF ayaa ku eedeeyay ciidamada Eritrea in weli dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan waqooyiga Itoobiya, halkaasi oo ay ka geysanayaan tacadiyo kala duwan.
arrintan ayay sheegeen inay ku adkaatay ciidamada TPLF hubka dhigista inay sameeyaan maadaama halkaasi weli dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan Eritrea sida ku cad shuruudaha heshiiska xabad joojinta ee 2 November lagu saxiixay Pretoria. dowladda federaalka Itoobiya waxay la wareegi doontaa xuduudaha gobolka Tigray, wadooyinka iyo garoomada diyaaradaha, halka dagaalyahanada Tigray-gana ay hubka ka dhigi doonaan. November 12-keedii taliyaasha militariga ee matalaya dowladda federaalka Itoobiya iyo kuwa Tigray-ga ayaa saxiixay heshiis ay ku jiraan hubka dhigista hubka culus iyo weliba ka bixitaanka ciidamada shisheeye iyo kuwa militariga federaal. guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.